caawa marka waxaan warbixin kala qaadanay ra'iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre iyo sheekh shaakir oo ah gudoomiyaha xukuumadda galmudug ayaan caawa la kulannay waxaan siinay warbixintii iyo waxyaabaha aan soo aragnay waxaan u sheegnay tabashooyinkii dadka meelaha kala jooga ay tabanayeen markaan la kulannay waxaan u sheegnay dadka reer galmudug meel kasta ay joogaanba inay noo caddeeyeen inay diyaar u yihiin inay ka soo qayb galaan shirka ka dhici doona dhuusamareeb tabashooyinka ugu muhiimsan ay qabeen inay ahayd arrimaha amniga inay hubiyaan inay meesha ay tahay meel aamin oo la isugu imaan karo ayay noo sheegeen waxay noo garantiireeyeen muxuu ahaa labaduba waxay noo garantiireeyeen sheekh shaakir iyo prime ministerku waxay noo garantiireeyeen amniga magaaladan inuu noqdo amni la isku hadlay karo inuu noqonayo saas ayay noo sheegeen waxaa kaloo noo sheegay sheekh shaakir in magaalada dadka jooga ay abaabuleen oo dadku ay guryihii degi lahaayeen iyo si loo soo dhaweey lahaa iyo taabasho weyn ee magaalada ka socoto oo dadku mataqaanaa marxabaysiinteedu ay diyaar yihiin saas ayuu noo sheegay annagana waxaan ku boorinay in ugu hambalyeynay hawsha meesha ay soo gaarsiiyeen ayaguna aad iyo aad ugu farxeen shaqadaas soo qaban